saddexda xisbi qaran ee Somaliland ucud wadani iyo kulmiye ayaa maanta heshiis ay si wada jir u soo saareen waxay ku qeexeen heshiis ay ka gaadheen ka qaybgelinta haweenka iyo beelaha gabooye ee musharaxiinta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka heshiiska oo si wada jir ay u soo saareen saddexda xisbi ayaa u dhignaa sida tan xisbiyada qaranku markii ay ku qanceen in aanay suurtagal ahayn ka maqnaanshaha haweenka iyo beelaha gabooye ee golayaasha muhiimka ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucud iyo wadani waxay ku heshiiyeen qodobadan soo socda qodobka koobaad in doorashada golaha wakiilada ee soo socota ay sharxaan 18 xubnood oo haweena qodobka labaad in doorashada golaha wakiilada ee soo socota ay sharxaan 3 xubnood oo kamid ah beelaha gabooye qodobka saddexaad ee saddexda xisbi ay ku heshiiyeen ayaa in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota ay isku sharixi karaan haweenka iyo beelaha gabooye tira aan xadidnayn qoraalka ka soo baxay saddexda xisbi waxa ku wada saxeexan xogayaha guud ee xisbiga kulmiye حسن سعيد يوليب حقيها جود حسبجا معارضك أعود أحمد حرسي يحسبجا معارضك وضننا وحوصي حي حقيها جود حسبجا خضر حسين عبدي حسن قليد وركم كيبل هرجيس مقعي جوا السلطان مقعي جوا السيرار اسكسي أيانو هذا الله اسكسينا وانو لبسنا اسكو منا وانو نهاي أنا سوحان استعماله سمتل اتسقو مو استعماله سمتل أنا قوين بدن بان سمتل كو هادل كراه بلسي اسقو سيدا ما سمين كرايا ورماهي رون ميا ورونتي أفر لباتنكي ساعداد وحان كو هادلا 2500 أو شيلين وبلاشي بشي أوردنا وحان كو هادلا $5 أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء ويدي فكر هذا وهدالين maalinta oo dhan ku hadal 2500 shilin ka Soomaaliland ama bisha oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha